xildhibaaneed Faaiisa Maxamed Jeyte oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo xalay soo gaartay magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika ayaa soo dhaweyn miisaan leh isla markaana taariikhda geli doonta wax lagu sameeyay gegida diyaaradaha caalamiga ee Cape Town International Airport. Qaybaha kala duwan ee jaaliyadda oo lulayay sawirada xildhibaanada ayaa iyagoo gudaha garoonka kula hadlayay saxaafadda waxay xildhibaaneed Faaiisa Jeyte u soo dhaweeyeen sida tan. waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan Soomaaliyeynta isugu timid meeshan si ay u soo dhaweeyaan walaasheena xildhibaan Faaiisa Maxamed Jeyte oo noogu timid Cape Town si ay u xog wareysatay jaaliyadeeda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika iyo xaaladahooda kala duwan oo ay ku nool yihiin. Inta aanan marka ku wareejinin xildhibaanada waxaan rabnaa inaan siino waxa jooga meesha odayaal waxa jooga culamaa u diin iyo haween intaba waxaan sii doonaa kelmado soo dhaweyn ah anagoo ku bilaabi doono Cabdiqaadir. dadka xilka loo dhiibtaayna sidaas oo kale inta badan ma sinaadaan marka Faaiisa aniga caawa igu horeysa oo aan arko waxaan say islahaa derbiga koray gaadhaysa gabadha saaw magac dheer ee South Africa iyo baarlamaankaba gilgishay waxa la yiraahdo bini aadamka qiimihiisuna waa maskaxda boodhiga ma aha in la dheer yahay in la gaaban yahay midna ma aha marka Faaiisa waa ruux miisaan weyn Faaiisa Jeyte marka Faaiisa waxaan leenahay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawow dhanka kaftanka haddaan ku darana caawo kale waxay ahayd inaan gabdhaha annagu u camirno laakiin gabdhuhu ay hadlaan maadaama waxa la soo dhaweynayaa ay tahay gabadh culus. waxaan leeyahay walaashii soo dhawow Faaiisa Maxamed Jeyte soo dhawow ku soo dhawow ummadaadii ku jecel dadkaaga ku jecel runtii caawa waxa fiicnaan saan la rabnaa caawa waxay ahayd intaan hadda imaaday in ka badan inay ay imaadaan si loo muujiyo muhiimadda u leedahay ummadda Soomaaliyeed kuwii dalka joogay iyo kuwa halkaan laakiin nasiib darro maysan dhicin sababtoo ah ama ha ahaato dadkii inay kala fog yihiin oo meelo kala fog lagu kala nooliyo dadka kala meelo ku kala firaarsan yihiin laakiin aad ugu faraxsana caawa inaan ka soo qayb galo soo dhaweyntaada waxay ii tahay sharaf iyo wanaag inaan caawa halkaan kugula kulmo wax badan magacaaga waa maqlay waxaad ka mid tahay dumarka Soomaaliyeed oo Soomaaliya maanta la dhihi karo wax qabadkooda iyo waxtarkooda iyo muhiimadda ay dalka u leeyihiin aan qarsooneen. xildhibaanad soo dhawow anigoo ku hadlaya afka ganacsatada Soomaaliyeed ee Cape Town ama guud ahaan South Africa waxaan ku leenahay si niyad leh ku soo dhawow aad baan u tabaynay qof qiimo leh inuu noo yimaado oo bulshada Soomaaliyeed meeshu ku matalo aan waxa ku jira xaqiiqada ka hadla golaha shacabka ee Soomaaliya maanta matalaada aan ku leenahay dadka ugu muhiimsan baa tahay. Welcome to Cape Town. sidaan u soo wada dhaweynaa walaashana xildhibaanada soo dhawow walaalshana ku soo dhawow Cape Town ku soo dhawow South Africa kolay waan filayaa in maaragtay wax badan oo aadan ogeyn aad kala kulmi doonto bulshada Western Cape ama Cape Town ama South Africa guud ahaan baa duu Ilaahay yiraahdo wax badan aan ka dhageysan doono kaana wareysan doono wixii macluumaad ah oo ka jiray dalkii ama dawladda xaggeeda. waxaa maanta meeshan ku jooga oo ku soo dhaweeyay bulshada qaybadeeda kala duwan culamaa u diin ganacsato odayaal haween ardayda jaamacadaha safaaradii oo Cape Town ee South Africa marka kulli jaaliyadu way ku sugayeen wayna u oomayeen hadalkaada insha Allah taala inay ka bogtaan warbixinta wadanka ka sii doonto insha Allah taala marka hadalkaygu anigu wuxuu ku soo koobay mahadcelin dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ka soo qayb gashay muxuu ah soo dhaweynta xildhibaanada qaaliga nagu aruntii aad u mahadsan yihiin jaaliyadan quruxda badan ee heeganta u ah inay soo dhaweeyaan markastaba mas'uuliyiinteeda ka imaanaysa Soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay qayb kamid ahay oon xilligan u wada taaganahay xildhibaanadeena sharafta badan xildhibaanada Faaiisa Maxamed Jeyte waxaan leenahay ku soo dhawow magaalada xeebta Cape Town wadanka South Africa magaaladan waa magaalo aad muhiim uga ah jaaliyada Soomaaliyeed tirada ugu badan gobolka ay joogan waa tirada ugu badan ee Soomaaliyeed marka ku soo dhawaan ku leenahay kulay fadhi ayaan ku wada sheekaysan doonaa fadhiyo badan baa jiri doona waa xilli dambo jaaliyada sidaan way ka balaaran tahay hamuun badan ayay u qabaan markasta inay soo dhaweeyaan mas'uuliyiinta ka socda wadankeena Soomaaliyeed
aad baanan ugu faraxsanahay inaad nasoo boqoto adiga iyo agaasimada gabadha ee walaasheena kale ay kula socotaa. xildhibaanada shacbiyada badan ku kasbatay codkarnimadeeda iyo hadlidda shacabka liita ayaa si diiran ugu mahadcelisay jaaliyadda Soomaaliyeed ee aan u kala harin soo dhaweynteeda. South Africa odayaasha dhaqanka, ganacsatada, culumaa diinka, dhalinyarada, gabdhaha, dhammaan qof kasta waxaan ku salaamayaa magaca iyo mansabka ay meesha ku joogto. aad iyo aad u mahadsantihiin. saa sheegteen xilli dambe waaye. aniga naftirkayga waxaa islaa biriso wixii lagu arko caawa habeen madow iyadoo ay meesha tag. laakiin waa isdhibteen. waa ku mahadsantihiin. inaa saacaan habeena oo 6 saac habeenimo intaan adinkoo tiro la eg aad u badantihiin dad yar maaha ay sugayseen waa walaalaheeyaatiin waa idinkaga mahadcelinayaa saa sheegteen xildhibaan ummadda Soomaaliyeed ahay insha Allah maalmaha aan joogna kala warqaadi doonaa adinkana waa daalantiin dad shaqeeyo saakisay shaqadooda ugu soo bixeenatiin annagana saaka ilaa hadda safar soo aheen aad u mahadsantiin kun iyo koo jeer waa idin mahadcelinaa karaami sharaf leediin ilaa ajri xasanaad ka soo dhaweyntiina wixii warbixinana baryaana isla joognaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.